السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن داوده markale ku soo dhawow cashar kale oo xiiso badan oo ku saabsan warbaahinta. Haddii maanta ay kugu horeyso boggan, fadlan subscribe dheh, aladkana furo, waad la wadaagi kartaa saaxiibada. Ku soo dhawow casharkeena maanta. Daawade casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay isbarbardhig aan ku sameyn doono warbaahin qorshe horumarineed leh iyo warbaahin aan qorshe lahayn. Marka intaynan isbarbardhiga gelin aynu eegno warbaahinta aan dhaqaale ahaan ku tiirsanayn hay'adaha ama dawladda waxa ay u baahan tahay inay soo saarto dhaqaalihii ay ku socon lahayd. In dhaqaale la soo saarana waxa sal u ah in la helo dhageyste in la helana waxa furo u ah in ay helaan wax soo saar tayo leh. Wax soo saar tayo lehna waxa sameyn kara wariye tayo wanaagsan. Marka haddaynu isbarbardhigno labada warbaahinood, warbaahinta qorshaha wanaagsan ee horumarineed leh waxa ay markasta ku tiirsan tahay oo ay u baahan tahay inay hesho lacag. Marka warbaahintu ay dhaqaale iyo lacag hesho, waxa ku xiga oo ay helaysaa shaqaale tayo wanaagsan leh. Shaqaale tayo wanaagsan leh markay yimaadaanna waxa ku xigaya oo ay soo saarayaan wax soo saar wanaagsan. Marka wax soo saar wanaagsan u yimaadana waxa imaanaya dhageystayaal badan. Dhageystayaal badan marka la helana waxa ku xigaya oo iyagana imaanaya suuq wanaagsan oo suuqii ay warbaahintu si fiican u galaysaa. Suuq wanaagsan markuu yimaadana waxa ku xigaya xayeysiis badan kadibna lacag badan. Sidaas ayay u soconaysaa oo giraantu ay u wareegaysaa. Markastoo lacagtu sii badato, tayada shaqaalaha sii wanaagsanaysa, wax soo saarka ayaa sii wanaagsanaya, dhageystayaashii ayaa sii badanaya, suuqii ayaa sii hagaagaya, kadibna xayeysiiska ayaa sii badanaya, lacagtii ayaa sii badanaysa. Marka maamulku waxa uu door ku leeyahay. Halka way kala cadahay. Doorka maamulku waxa weeyaan wixii lacag ah iyo wixii shaqaale tayo wanaagsan ah. Labadaas waa doorkooda. Laakiin wariyaha waxa uu door ku leeyahay inuu hagaajiyo wax soo saarka iyo inuu dhageystayaal badan keeno. Markay intaas yimaadaan marka waxa imanaya oo ay intaas dhalayaan horumar iyo guul. Laakiin dhinaca kale markaan eegno warbaahinta aan qorshaha wanaagsan lahayn ee aan waxba qorsheysan waxa iyadu ay mar walba ka bilowdaa hawsha oo ay la tacaasha lacag la'aan. Lacag la'aantu waxay keenaysaa in shaqaale tayo xun ay yimaadaan. Shaqaale tayo xunna waxay keenayaan in wax soo saar hooseeya uu yimaado. Wax soo saar hooseeyana wuxuu keenayaa dhageystayaal la'aan iyo dhageystayaashana hoos u dhacaan. Kadibna waxay keenaysaa suuq xumo. Kadibna waxa imaanaya xayeysiis la'aan. Kadibna lacag la'aan. Sidaas waxay indaabka u soconayaa shaqaalihii tayadooda soo xumaanaysaa. Wax soo saarkina hoos buu sii dhacayaa, dhageystayaashina way sii yaraanayaan, suuqii wuu soo xumaanayaa, xayeysiis la'aan ayaa imaanaysa ilaa lacag la'aanta ay sii badato ilaa heer uu xidhmo. Kadibna waxaasoo dhan waxay dhalayaan dib u socod iyo guul darro ayaa dhalanaya. Intaa markaanu xusno marka waxa iyadana xusuusin mudan oo in wax la iska yiraahdo mudan oo aad u muhiim ah. Lacagtan xagee ka imaanaysa? Waa ay cid lacag soo saaraysa. Mar haddaan niro doorka wariyaha ayay tahay in wax soo saar wanaagsan lala yimaado. Waa marka barnaamijyada iyo waxa dadku dhageysanayaan laga hadlayo. Kadibna dhageystayaal wanaagsan ay keenaan oo dhageystayaal badan ay keenaan. Doorkoodu ma aha in shaqada ay qabanayaan iyo waxa ay bulshada u qabanayaan ay lacag ku saleeyaan. Warku xayeysiis ma noqdo. Wax soo saar tayo lehna ma soo bixi karo haddii warbaahinta wararka iyo barnaamijyada ka baxayahay ay xayeysiis noqdaan. Waxaan u maleynayaa inaad wax badan fahantay isbarbardhigga labada warbaahinood ee midna qorshaha wanaagsan ay leedahay midna qorshe la'aanta ay tahay oo dhinaca horumarka aysan u jeedin. Fadlan haddii aad ku cusub tahay maanta subscribe dheh, aladkana furo, comment bixi wixii fikrada, share garee, dadkana la wadaag. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay sidaad u daawatay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.